بسم الله waxaan baranaynaa markaasi comment-ka loo yaqaano nano seenu barano waa inaan tagnaa comment prompt-keeni ama terminal-keeni waa inaan tagnaa kadib marka terminal-keena tagno waxaan u baahanahay sidii caadada ahayd inaan soo yaro weyneyno saynu wada arki karno marka nano ayaan rabaa inaan idbaro nano ayaan rabaa inaan halka ku dhex create gareeyo home directory-ga nano isna waa file editor ama file creator aan idhaahdo fileka sida loo sameeyo fileka sidaan u sameynaynaa markaasi fileka waxaan ugu dhex qoraynaa sidii cat oo kale ayuu la mid yahay simply cat oo kale la mid yahay ama cat waxba kuma kala duwana badan saas marka waxaan u bixinayaa nano kadibna fileka magaciisa waxaan ka raacinaya file1 dot sidii aynu odhan jirnay oo kale tusaale ahaan txt filekaasaan sameynay fileka markaan sameyno waa inaan filekii halkan wax ku qornaa waxaan leenahay halkani waa hoyga tacliinta barta internetka sidaas deetana qoraalada kala badan baan kan dhigi karnaa saasi whatever it is wuxuu yahay marka waxaan doonayaa shortcuts inaan isticmaalo sida loo save garanayo waxyaabahaas marka halkan ay kugu wada qorayeen wax kasta ala haddaad ka baxaysid waa control x haddaad help u baahantahay waa control g control w to out inaad uga baxdid tusaale ahaan haddaad doonaysid inaad ogaatid werisi oo cut copy haddaad waxa doontid aan ka samayn kartaa marka inagu seen uga baxaynaa way soo shado waxaan uga baxaynaa inaad idhaahdidna control iyo o ayaa looga baxaya wuxuu ku leeyahay ma fileka magacaasi leh ayaa sidiisa u save gareeyaa mise waad bedelaysaa ma sidiisa u save gareeyaa wala enter baan leeyahay saas ugu save gareey marka waxaan leeyahay seen uga baxayaa control iyo x ayaan uga baxayaa saasaan uga baxay ila sadaan idhaahdo filekii loo yaqaanay file1 halkan uu iga create gareysay marka aan bal eego marka filekii cat waxba raacin maayo cat arrowgaadaan raaciyo file cusub ii noqonaya laakiin markaan rabo inaan sidiisa u eego view gareeyo waxaan leeyahay cat file1 tab kadibna waa kan xogtayda halkan igu taalo marka nano isna sidaasi ayaa u yahay text editor